wasaaradda tamarta xukuumadda federaalk Soomaaliya ayaa maanta shir lagu hadlayay sidii loo horumarin lahaa wasaaradda tamarta xukuumadda federaalk Soomaaliya waxay ku qabatay magaalada Muqdisho. sidoo kale shirkaani ayaa waxaa ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka kala socday shanta maamul goboleed dalka iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sareysa wasaaradda tamarta xukuumadda federaalk Soomaaliya. ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay agaasimaha waaxda biyaha injineer Axmed Maxamed xirsi asigoo daafuray shirkaani. aad baad raal uga noqonaysaan waxaan u maleynayaa sidii horeba loo sheegay shirkan iminka aynu isugu nimi waa shir 3 bilood la ah intersectoral wash sector coordination isu duwidda hawlaha biyaha nadaafadda fayadhowrka oo aynu soo wadnay in badan soo wadnay sidii aynu muxuu ahaay barnaamijka aynu wadnay aynu uga madadhalin lahayn isu weydiin lahayn maxaa inaga khaldan maxaa inaga saxsan maxaa xagee baynu u soconnaa barnaamijkeenu yana arrintii mawduuca aynu ka hadlaynaa runtii waa sidaas waxaynu u haynaa ummadda adeegaas oo muhiimadda weyn leh oo biyaha fayadhowrka iyo nadaafadda si meelaha kala duwan oo dalka aynu ka shaqaynayno aynu u ogaano gaabka jira horumarka jira dib u dhaca jira waxyaalaha jira aynu isu nimaadno mar walba aynu isweydiino miyaynu ku soconnaa sidii loogu talagalay hawsha mise waxba inaga khaldan. sidoo kalena waxaa ka hadleen mas'uuliyiin ka soo qayb galay munaasabadda sida qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamul goboleedyada dalka iyo mas'uuliyiin kale sidaan dawlad goboleedyada aan ugu da'yarnahay inaan anigu dadka soo istaagay xoogaa ugu da'yarahay waa salaamayaa qof walba mansabka iyo meesha ku timid ay ku joogta ayaan ku salaamayaa ka bilow agaasimaha biyaha tamarta Hirshabeelle ka soo qayb galaasha wash clusterka wasaaradda caafimaadka dhammaan qaybaha kala duwan ee ka soo qayb galay markaan u soo gudbo dhanka wax qabadkii wax ka sheegida wasaaradda biyaha tamarta iyo kheyraadka Hirshabeelle shirkan shirkii hore 3 bilood lahay wixii laga sheegay waxyaabo badan ayaa ka suura galay iyadoo moodid xilligaas inay dagaal aysan jirin oo hadda ay ku soo kordheen dagaalo oo water tracking oo kale iyo waxyaabahaas oo fast aid-ka aad loogu sii baahday gaarsiinta bulshada waxyaabo badan aan la qabtay hadii loo fiiriyo oo shirkan shirkii ka horeeyay ceelal badan ayaa la qoday water tracking badan ayaa la sameeyay waxaana filayaa shirkan hadda aan u fadhino intaas mid ka weyn oo wax qabado inuu ka soo bixi doono insha Allah wa salaamati wasaaradda beeraha wasaaradda biyaha wasaaradda waxbarashada wasaaradda deegaanka intaaba magacoodan ku hadlayaa anoo matalaya South West waxaan u maleynayaa meetingkii noogu dambeeyay in aan kaga hadalnay arrimaha xoogan taasna bacdama sanadku ka bilaabay waxaan jeclahay in follow up lagu sameeyo oo la horumariyo oo wixii aan ku ballanay sanadka dambe insha Allah ay noqotaan hadii aan tusaale soo qaato waxaan ka warqabay water catchment in la sameeyo in la soo yareeyo lagana hortago water tracking oo dib weyn lagu haya for example hadda ayaan wada aniga waxaan badqabkooda baarayay 38 baabuur oo water tracking sameynayso oo dawladda Sacuudiga boqorka Sacuudiga oo liibay in fact dadku ku farxeen IDPs-ka laakiin aniga waxaan u arkayay wax yani very poor horumar uma arkayn dhibaato ummadda loo soo kordhinayo baan u arkay sababta waxa waaye anaga Highland aan deganahay biyaha ay ku badan yihiin ceelasha ay ku badan yihiin 2017 ilaa iyo hadda iyo in ka horeysay ceelal la qoday biyaha la diyaarinay maantana water tracking la wadaa waxay ku tusaysaa marka mismanagement ma jira planning ka hore oo warahmatullahi wabarakatuh dhammaan ka soo qayb galayaasha shirkan ka soo qayb galay waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
noqonaysaan xogaaga maartay dib u dhaca waqtiga oo aynu isu sugnay aad baad raali uga noqonaysaan waxaan u maleynayaa sidii horeba loo sheegay shirkan iminka aynu isugu nimi waa shir 3 bilood la ah intersectoral wash sector coordination isu duwidda hawlaha biyaha nadaafadda fayadhowrka oo aynu soo wadnay in badan soo wadnay sidii aynu muxuu ahaay barnaamijka aynu wadnay aynu uga mara dhalin lahayn isu weydiin lahayn maxaa inaga khaldan maxaa inaga saxsan maxaa xagee baynu u soconnaa barnaamijkeenu yana arrintii mawduuca aynu ka hadlaynaa runtii waa sidaas waxaynu u haynaa ummadda adeegaas oo muhiimadda weyn leh oo biyaha fayadhowrka iyo nadaafadda si meelaha kala duwan oo dalka aynu ka shaqaynayno aynu u ogaano gaabka jira horumarka jira dib u dhaca jira waxyaalaha jira aynu isu nimaadno mar walba aynu isweydiino miyaynu ku soconnaa sidii loogu talagalay hawsha gargaarka iyo caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada wash kala sarka hay'adaha iyo tiimka UNICEF iyo matasharta kale halka soo qayb gashay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha oo mar kastaba shirkan nasukaana yar 3 biloodba mar ee looga tashado aayaha biyaha iyo abaaraha waddanka ku yimaada si markaa wax looga qabto insha Allah waxaan aad iyo aad u rajaynayaa in maanta halkan ay ka soo baxdo qodobo fiican oo aad iyo aad u wanaagsan oo runtii wax looga qabanayo abaaraha iyo runtii waxyaalaha conflict ka dhasha